waxaa sababay inay dadkoo dhan isku sii warag xiriirka amba jacaylka. waxaa sababa in dadka qaar ay si fudud u aaminaan halka kuwa kalena ay ka baqaan xataa inay kaaga dhowaadaan ay isku dayi waayaan. daba jawaabtu waxay ku jirtaa attachment theory. halkan maanta waxaan kugu bari doonaa 4 nooc ee markaasi xiriirka ee maskaxdu samayso, kuwaasi oo si joogto ah amba si daily ah u saameeya noloshaada oo idil, saaxiibtinimadaada, jacaylkaaga, xiriirkaaga iyo waxyaabaha kugu xeeran oo dhanba, ama waxaan dhihi karnaa dhammaan noloshaada oo idil. magacaygu waa Mr. Ibe. kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkiina maanta. muuqaalkiina maanta waxaan kaga hadli doonaa saan hore usoo sheegnay 4 nooc ee loo yaqaano attachment theory, oo ah 4 qaab ee maskaxdu u samayso xiriirka ama markaasi waxyaabaha ay dadka kale la wadaagay. dabaadeed nagu cusubtay saaxiib nagu soo biir. haddii aad hore noola joogtayna muuqaal kale inoo saar. sidoo kale waxaan rajeynaya haddii aad nagu soo biirto inaad wax badan naga faa'iidi doonto. attachment theory waa aragtida isku xidhnaanta. waa habka cilmi nafsiga ah, isla markaasna inoo sharxaya qaabka ay dadku u wada xiriiraan, u maareeyaan, isla markaasina ay maskaxdooda u go'aamiso xiriirada ama markaasi saaxiibtinimada ay la wadaagayso dadka kale. waxaanan ku ogaan doonaa in habka markaasi laynoo soo koriyay ay ka qayb qaadato qaabka aan dadka xiriirka ula samaynayno ama aan ula dhaqmayno. qodobka koowaad ee muuqaalkeena kaga hadlayno waxaa loo yaqaanaa secure attachment. secure attachment waa habka koowaad ee ka mid ah markaasi attachment theory-ga ama waxa loo yaqaano aragtida isku xidhnaanta. habkan waxaa loo yaqaanaa waan ku jecelahay waanan kugu kalsoonahay. habkan waa hab qofku dareemayo ama markaasi uu yahay qof isku kalsoon, soo kalena qofka uu jecel yahayna si xad dhaaf ah u jecel. oo haddii markaasi qofka uu jecel yahay uu ka mashquulo ama markaasi hawlo uu yeesho ama markaasi fariimihiisa uu ka soo jawaabi waayo, marnaba ma dareemayo wax culaysa. wuxuuna ogaanayaa soo kale oo naftiisa ku mashquulinayaa inuu qofkaasi leeyahay hawlo iyo dana u gaar ah. waxayna bartaasi ka ogaanaynaa in secure attachment uu yahay habka qofku uu yahay qof isku kalsoon, qofka uu jecel yahayna marnaba aanan markaasi ka shakin. oo tusaale yaroo kooban haddii aan soo qaadano, saaxiibka amba saaxiibada ayaa markaasi aad wacday, misana koolkii uu kaa qaban waayey ama fariintii hore ayuu kaaga soo jawaabi waayey. wuxuu isku dayayaa qofka secure attachment kale inuu markaasi naftiisa ku mashquuliyo, inuu qofkani hawl ku mashquulsan yahay ama markaasi ay jiraan waxyaabo markaasi muhiim ah oo markaasi uu hayo. habka labaad ayaa waxaa loo yaqaanaa saaxiibayaal anxious attachment. waa habka markaasi ka mid ah hababkii aan soo sheegaynay, waana habka markaasi aragtida isku xidhnaanta ama attachment theory-ga. haddaba qodobkan labaad saaxiibayaal waa qodob aad iyo aad u xiiso badan. qodobkan ayaa wuxuu leeyahay saaxiibayaal qofku wuxuu noqonayaa mid walaacsan. anxious attachment waa habka uu yahay qofku mid walaacsan, isla markaasina u baahan mar kasta, saacad kasta in loo caddeeyo in la jecel yahay ama markaasi uu yahay qof la danaynayo. waayo isagu waxuu dareemayaa mar walba inuu yahay ambaba markaasi maskaxdiisa ugu sheekaynaysa inuu yahay qof laga xiiso dhacay, ama wuxuu isleeyahayba qofkani wuxuu helay qof adiga markaasi ka fiican oo saas awgeed waa uu ka xiiso dhacaya. isla markaasi haddaba wuxuu u baahan yahay qofkani inaad u caddayso in markaasi aad u baahan tahay ama markaasi aad jeceshahay ama muhiim uu ku yahay. haddii aad intaas u caddayn weydo, qofkani wuxuu dareemayaa emotionally qof dhaawaca. haddaba maxaa looga baahan yahay qofka noocan oo kale ah? qofka noocan oo kale ah waa qof markaasi u baahan in loo caddeeyo in isaga la danaynayo oo uusan jirin qof kale oo isaga u dhigma. haddii markaasi qof anxious attachment leh uu fariin u diro qof saaxiibkii ah ama markaasi familka ah, isla markaasina qofkaasi uu soo jawaabi waayo, waxa uu dareemayaa in qofkani uu yahay markaasi qof ka maarma, ama yacni wuxuu dareemayaa inuusan ahayn qof muhiim ah. halkii secure attachment-kan hore usoo sheegnay uu ahaa qof kalsooni buuxda leh, kalsooni nafeed leh, isla markaasina mar walba naftiisa ku mashquulinaya in markaasi shaqo amba hawl muhiim ah oo qofkaasi hayo. laakiin beddelkeeda qofka anxious attachment leh waa qof aad iyo aad walaacsan, werwer badan, una baahan in loo caddeeyo, loo sharaxo ama markaasi loo muujiyo dareen gooni ah oo aad u weyn. mid kasta cad ayaa waxaa loo yaqaanaa avoidant attachment. waa hab markaasi ka mid ah hababkii aan soo sheegnay ee 4 waana midka saddexaad. midkan avoidant attachment wuxuu kaga duwan yahay kuwii kale. habkan waxa uu aaminsan yahay in dadku aysan u soo dhowaan, isaguna uusan dadka u dhowaaneyn si markaasi uu uga fogaado dhaawaca iyo markaasi dhibaatooyinka, ama waxaan soo sheegnay ee hore loo yaqaanay dhaawaca yacni emotionka, in uu qofku emotionally noqdo qof dhaawacan oo dareemaya inuu yahay qof aan loo baahnayn oo kale, ama markaasi lagu sameeyo disrespect ama waxa markaasi wax isaga qalbigiisa dhaawacaya. taasi waxay ku keenaysaa inuu qofkani noqdo qof ka fogaada dadka kale. qofkan markaasi inta badan uma baahna ama ma daneeyo
mana xiiseeyo inay dadku u soo dhowaadaan amba isagu dadka uu dhowaado. wuxuuna aad u xiiseeyaa madax bannaanida. wuxuu jecel yahay go'aamadiisa iyo waxyaabaha u khaaska ah inaan cidna la wadaagin, waayo wuxuu ogyahay haddii uu markaasi qofka xiriirka ula leeyahay uu xakamaynayo, uu ku leeyahay waxaan iska daa, waxaan ka joog, taasi ay ku noqonaysa isaga in la kantaroolayo. qofkani wuxuu loo yaqaano ka cararka qotada dheer. haddii uu dareemo in xiriirka aad leedihiin uu sii fogaanayo, waxaa isku dayayaa inuu markaasi isku dayo habkii uu soo jeri lahaa. wuxuuna keenayaa si kasta amba hab kasta uu marmarsiiyo u samayn karo si uu kaaga fogaado amba iskaga kaa fogeeyo. oo tusaale ahaan haddii markaasi uu dareemo in xiriirku sii fogaanayo, waxa uu samaynayaa oo isku dayayaa inuu ku dhaho si waqti naftaydu waxay rabtaa inay keliya ahaato, waayo waxuu dareemayaa qofkani madax bannaanidiiba lagala wareegay oo la kantaroolayo. fearful avoidant attachment waa habka afraad ee markaasi aan kaga hadlaynay qodobadii attachment theory-ga ama aragtida isku xidhnaanta waxa loo yaqaano. fearful avoidant attachment waa hab markaasi aad iyo aad u layaab badan. habkan ayaa waxayna leeyahay saaxiibayaal, waa in noqda qofku mid leh waan ku rabaa, sidoo kale waan kaa cabsanaya. qofkan waxuu dareemayaa inuu qofkan jecel yahay, laakiin uu ka baqanayo inuu qofkani dhaawaco ama berri ka maalin uu ka tago ama uu u geysto waxyaabo uusan marnaba rabin oo isaga dhaawac u keenaya ama isaga dhibaato ku ah. wuxuu aad u doonayaa qofkani xiriir jacayl ama saaxiibtinimo ama markaasi in wanaag loo muujiyo, balse wuxuu dareemayaa haddii uu sii wado ama markaasi uu qof ka helo in qofkani berri ka maalin dhaawaco, oo waxa uu markasta aaminsan yahay qofka inuusan ku kalsoonaan ama 100% inuu kalsoonida ama markaasi kalsooni buuxda uusan marnaba siinin. qofkan waxa uu caan ku yahay dabeecad isbedbedel badan. mar waxa uu ku siinayaa amba uu ku tusayaa wanaag badan, waxa uu ku tusayaa inuu markaasi yahay qof ku jecel, marna waxa uu ku tusayaa inuu yahay qof aan ku danaynayn oo kale, ama markaasi fariimaha uu kugu dhagaysto uu kaaga soo jawaabin waxyaabo la mid ah. wuxuuna aaminsan yahay qofkani si qoto dheer in dadka oo qof kasta oo u soo dhowaada maalin uun cilayn doono misena dhaawici doono. taasina waxay ka dhigaysaa in uu noqdo qof ka cabsada xiriirka saaxiibtinimada amba waxyaabaha la midka ah. oo dabeecadda qofkani waxay isku beddeshaa saacado gudahood. waxa uu ku odhanayaa maanta waan ku jecelahay, waan ku rabaa iyo waxyaabo la mid ah. berri ka maalina waxa uu ku dhahayaa kuma rabo, amba waxaad ka dareemaysaa in uusan ahayn qof kuu soo jeeda oo adiga ku danaynaya, sidii inuu yahay qof adiga iska kaa fogeynaya oo aad tahay dhibkiisa. saaxiibadeed nagu cusubtaan nagu soo biir. haddii hore noola joogtayna muuqaalka noo saar.